fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalin wacan wanaagsan saaxiibayaal meel waliba oo aad maanta caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada maanta iyo ciyaarihii. qodob badan baan ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha oo ay ku jiraan warar ku saabsan kala iibsiga ciyaartooyga ee kooxdaadu waan wax badan kaga sheegi doonaa iyo akhbaaraadka kale ugu muhiimsan maanta ee ciyaaraha finalka Europe League iyadoo uu soo dhow yahay. Arsenal waa ka shakinayaan goolhayahooda Patrick Schick maxaa yeelay Chelsea ba xil u sii magacawdayo waxa la dareemayaa in goolhayuhu uu gool u deyndeyn doono kooxda Arsenal Chelsea u deyndeyn doono si Chelsea ugu caawiyo oo xil siinaysa inay qaado Europe League dagaal bay ka dhaxdalisay Chelsea Arsenal iyo goolhayada Patrick Schick shaki badan baa jira oo ku asaabsan in finalka Europe League uu goolhayuhu Arsenal uu Chelsea u cimaamado iyo qodobo kale baan ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha ku saabsan oo labada Manchester waxay isku hayaan ciyaaryahan aad u qatar badan oo aad u muhiimsan iyo waliba xulka Copa America ugu qayb galaya tartanka Copa America ugu qayb galaya Argentina oo la doortay ama lagu dhawaaqay Icardi oo xulka laga reebay Messi oo xulka hogaaminaya laakiin wali Argentina kan arkayo ciyaaryahanada ay wataan والله ميسي نسيبكيسو ماشي wax badan ma joogaan wax ma qaba karaya waan arki doonaa iyo ninka Mbappe wali waxa la leeyahay ilaa hadda wuxuu raadinay inuu ku biro kooxda kubadda cagta Real Madrid. Griezmann oo dhaliyay goolkiisa ugu dambeeyay Atletico Madrid iyo qodobo kale baan ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha ku saabsan oo aad u muhiimsan bal warkii oo faahfaahsan. warka waxa ugu weyn maanta kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa dagaal ka dhex dhalisay kooxda kubadda cagta Arsenal iyo goolhayaheeda Patrick Schick. waxa soo baxay warar sheegaya Chelsea inay xilka agaasimaha kooxda Chelsea u magacaaween ninka lagu magacaabo Patrick Schick waxaana taas keenaysaa ka hor finalka Europe League oo dhawaan la ciyaari doono iyadoo aan finalka Europe League la ciyaarin marba hadii Chelsea ku sii dhawaaqday Patrick Schick directorkii kooxdu noqonaya hadii ay ku sii dhawaaqday taas waxay ka dhigi karaysaa Arsenal inay ka shakiyaan ciyaartooygu marka finalka Europe League uu ciyaari doono. waxaana dadka Arsenal soo jeedinayaan in finalka Europe League la ciyaarsiin goolhayaha Patrick Schick oo la ciyaarsiyo goolhayaha kale Leno. wararka sheegaya Chelsea inay xilka u magacaabi rabto ninka kan ee lado Patrick Schick ayaana qabsaday dunida oo dhan ka hor finalka Europe League. waxa Arsenal hadda ay ka shakinayaan in goolhayahaas bal ciyaarsiyo kulanka. Patrick Schick ayaa Chelsea ka soo tagay 2015 muddo 10 sano ka badan kooxda la joogay 37 jirkan bana Arsenal u soo wareegay sanadka wixii ka dambeeyay wixii ka dambeeyay halkan joogay Arsenal waxaanu la qaaday tartanka FA Cup-ka iyo Community Shield-igu laakiin hadda waxa uu kulankii ugu dambeeyay ciyaari lahaa Europe League kadibna waxa uu aadi lahaa meeshuu doono. sanadkan ayaa sanadka ugu dambeeyay uu ciyaari doono Patrick Schick waa duqoobay oo waa qaaroobay yacni Europe League ba kulankii ugu dambeeyay laakiin xilliga ay Chelsea ku dhawaaqday يعني wararka ay soo baxayaan ee ku aadan Chelsea xilay siinayso Patrick Schick ayaa ku soo aaday xilli aanan waxba laga qaban karin oo mid isku diraya Arsenal iyo Patrick Schick ba marba hadii xilka loo magacaabay ninka ka Patrick Schick xudis waa been wuxuu leeyahay warkaas waa been waxba kama jiraan buu leeyahay sidaan hore idinku sheegay go'aankayga waxaan gaari doonaa markaan ciyaarta Europe League ciyaaro buu leeyahay waana waxba kama jiraan buu ku tilmaamay wararka sheegay inuu Chelsea xilka qabanayo wax jira laakiin asaga hadda wuxuu leeyahay warkaas waa wax been waxba kama jiro leeyahay anigu go'aankayga waxaan gaari doonaa markaan ciyaaro uu leeyahay finalka Europe League kadib baan gaari doonaa go'aanka. marka Chelsea warka ka soo baxay ku aadan inay director kooxdooda Chelsea ka dhiganayaan Patrick Schick ciyaarta finalka Europe League kadib wuxuu isku dirayaa marka Arsenal iyo nimanka kan ee goolhayood Patrick Schick isku dirayaa. dadka qaar Arsenal waxay isleeyihiin arkan hadii la safana Chelsea buu cimaamadayaa ka hor intaanu Chelsea u wareegin ayuu ugu cimaamadayaa koobka Europe League ba si xilkiisa u sii ansaxnaado amaba booskiisa Chelsea lama taabtaan buu noqdo. marka Arsenal waxay soo jeedinayaan war ninkan xilka loo sii magacaabanayo waryaanu goolkan loo gelin. marka reer Arsenal aad bay arikan ugu shakiyeen oo Chelsea waxay isku dirtay goolhayahoodii Arsenal iyo macalgulayada isu dirtayo marka xilligan la sheegayo in Chelsea ay u magacaabayso Schick waxa weeyaan waxa uu qalqal gelinaya finalka Europe League Arsenal markay la ciyaarayso Patrick Schick lacala xataa hadii Patrick Schick laba xaba saddex lagu gamay ka dhalato waxa la dhihi doonaa Arsenal dhihi doonaan war waa ka waxaan idin sheegnay yaaqay ninkan goolasho waa deedeeyay yaaqay caadi maan u hayn Chelsea xil u sii magacaawday kan waaye in kan balo way dhihi doonaan hadhow xataa dad ka badisaan Chelsea oo Arsenal hadda Chelsea oo Arsenal ka badisaan waxay dhihi doonaan war ninkan uu goolasho waa deedeeyo xil baa loo magacaabay. Arsenal iyo Patrick Schick xaaladdu waa ku dhex xuno xilkan la sheegayo Arsenal iyagu isku diraya.
wallow uu jeeg beeniye warkaas uu leeyahay go-aankaygu final kadib baan gaarayaa haddana jiritaanka xilkan la sheegsheegayo Chelsea u magacaawaysa ninkan waa wax jira laakiin siday Arsenal ninkan ka yeeli doonto finalkan la ogeyn in keed la gelin doono ama uu ciyaari doono ama ka kale laga doorbidi doono labada kooxood ee Manchester Abigana waxay aad isugu hayaan ciyaartooyga lagu magacaabo Isco kaas oo ka tagi kara kooxda kubadda cagta Juventus aan raahday Real Madrid waxaana kamid ah kooxaha doonaya ninkan Juventus ba kamid ah marka labada kooxood Manchester Abigu United City aad bay isugu hayaan ninkan iska ah wallow isagu la sugayo go'aankiisa ugu dambeeyay inuu isaga baxo Real Madrid iyo in kale xilli ciyaareedkii soo dhamaaday aad ugu wanaagsan ninkan keed Madrid ka ah laakiin waqtiga uu joogo Zidane ayaa laga yaabay ninkan uu qanciyo laakiin labada Manchester aad bay u xiiseynayaan Isco Juventusna wali waxay ku dhowdahay baa la wareegida tababaraha kooxda Chelsea Mauricio Sarri waxaana ay ka dhiganayaan bedelka tababaraha kooxda ka tagay ee Massimiliano Allegri ayaa la cadeeyay muddo 5 sano kooxda maamulayo 5 Serie A la qaaday koob kale inuu isaga tagi doono kooxda Juventus hadda raga ugu cadcad xilkan waxa kamid ah Master Mauricio Sarri wariya Sarri way ku fiican tahay Juventus ka aado waana koox weyn oo hada iska daldalanaya Serie A meesh niman Juventus la tartami karo ma joogaan madax xanuunkan Premier League kugu qabsaday waba iska dhaafaysaa xalkana waxa kaaga horeeyay siyaarka iska dhuuqi jirtay ilaa Talyaanigu siyaarka waa lagu dhex jiidi karaa iyadoo garoonka la joogo kuwan way ku dhibeen madax xanuun Premier League ay ku keeneen siyaarkina waa ku diideen markaas waxay kugu qasbeen inaad sakareedku aad iska xarafsato ama aad iska rurugtaba marka inaad Serie A ku noqoto waxaad qabanaysaa kooxda ugu awoodda weyn waqtigan Juventus baad tababar u noqonaysaa Serie A inaad qaadayso iyo Coppa Italia inaad qaadayso wax ku cad sigaarkaagina waa banaanka iska dhuuqi kartaa Jamligu baa ku daran marka waa kay Sarri ilaa hadda wuxuu u dhow yahay Juventus wararka Juventus ku saabsanna Juventus waxay wararku sheegayaan in qarka u saaran tahay la wareegida ciyaartooyga lagu magacaabo Milinkovic Savic waa Sergio Milinkovic Savic oo ciyaara kooxda Lazio sanadkii hore bayninkan aad doonayeen ilaa haddana way doonayaan warar ayaa sheegaya mar kale Juventus inay ku laabatay heshiiska ciyaartooyga Milinkovic Savic waxaanay wararku qaar leeyihiin waxa jira heshiis la gaaray oo Juventus ay la sii gaartay ciyaartooygan Juventus ayaana hadda la bilowday wada xaajood ciyaartooyga kanu Milinkovic Savic oo nin 24 jira wararka ugu khatarta badan ee horyaalku Serie A ka ciyaara sanadkan inkastuu dhaliya goolal yar oo iska shantoo ah sanadkii uu ka khasiyay badnaa 12 gool dhaliyay waa nin qadka dhaxo cajiiba waxay wararku sheegayaan hadda sida uu soo warinayo wariyahaadka loogu kalsooni badan yahay Talyaaniga Gianluca Di Marzia Juventus heshiis la sii gaartay ciyaartooyga kanu ee Milinkovic Savic akhbaraadka lagu miisan maanta ciyaaraha waxa kamid ah ninkii Varane ahaa wuxuu ku dhawaaqay inuu iska sii joogi doono kooxda kubadda cagta Real Madrid ka hor Zidane intaan imaan wuxuu lahaa xagaga dambe baxaya laakiin Zidane baa ku qarciyay inuu kooxdu sii joogo siday u badan tahayba waxaan uu cadeeyay xagaga dambe inuu kamid ahaan doono Real Madrid oo ay imaan doonto Madrid aad u xoog badan kadib niyad jabkii sanadkan u dhacay xulka kubadda cagta Argentina ee ka qayb galaya Copa America ayaa lagu dhawaaqayo xulka kanuna waa xul inkaaran oo aan yaab laba bandhigu aragtay Brazil halka ciyaaryahan ay doorteen iyo ciyaaryahanadii faraha badnaa ay ka tageen oo laacibiinta ahaa laakiin Argentina si dar wuxuu ku qabaa baryahan habruhu Argentina ilmo qatar ma dhalaan habruhu Argentina baryahan waa laga yaaban yahay Messi Maradona ugu dambeeyay Aguero iyo Di Maria waa iska fardhiyaan xogaa iyo Dybala laakiin xulku xubno tarayaan يا هدبا أرجنتين بالغ دواقي ليسكا وغيب قري دونا عيارها كوبا أمريكا حول كانوا ياقي عيارتويقا كوير وكاي ولي رق ير بي ولي وطارون آد ذا قرنين رق قار ويركا ويلقود ويكاد سنان جيرين لكن لحظة إيا الدفاع ويا قولهايو ويلقود باكوحو معين وكاني هدا بالفيري وحال لغا سو تغي حولكا أرجنتين أو لغا ريباي سيده لاتنين بالغ دواقي إيكاردي وال لغا سو تغي حولكا كان وحال لغا سو تغي عيارتويقا لغو مقعابو Angel Correa oo kamid ah kooxda Atletico Madrid waa laga soo tagay Banega iyo Marquedo oo iyanu Sevilla على حاليسك أرجنتين ee lagu dhawaaqay waa kan goolhayaashu ilaa hadda waxa la yaabay yahay sababtaan xulka loogu soo dareyn ninka lagu magacaabo Romero oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United ninkaas waa qatar badayay ninkaas ninka fiican baan Argentina ku arkinba Romero hadda goolka ugu digay kaadka ugu jira wallahi waa nin qatar badan uu iska roo yahay laakiin kuwa hadda goolka goolhayaal kale oo cimad badnayn bay wataan fiiri walow Armenia uu yahay goolhaya fiican oo wadanka ku ciyaara laakiin aad u cimad badna Armenia la xulay goolka Amdrado in la xulay Agustin in la xulay wallahi kuwan waxaan is leeyahay Romero xataa ma gaaran baan is leeyahay ninka Yurubta ka ciyaaray qatarta badanba arkuwan xul aan haysahay Messi adiga kuwan cirey ka soo bixinayaan kuwan wax la qaadi karto wala nasiib aan baan ku rajeynaya laakiin kuwan aan arkayo wali kuwi aan aqaanay Argentina yaryariska yani aan dadku fiicnayn ahaabad wadataa wali Argentina oo ilma yara Messi akuna wadataa arila wixii dad adduun inta dhigay ma kuwaas wadataan ilaahay amarkiye
difaacyadu waa Ottomandi baa lagu soo daray Man City Void oo Tottenham Hotspur Tolevico oo Ajax Funes Mori oo Villarreal Renzo Savio oo Racing iyo German Barcelona Fiorentina iyo Milton Gasco oo River Plate hey Argentina waa ka difaacooda khadka dhexda waxa kamid waa kaas Akuna aan sheegay waa ka Marcos Akuna oo Sporting CB midko shub waa xoogan waa Angel Di Maria dhaawac la haduu ku ciyaar la waxba aan leno ma ku ciyaarayo adiga uu baka dhaawacaya kulkeed u baahan tahay sidoo kale waxa ku jira rag kanu Pereira oo wadfad u ciyaaran kan waa qatar iska roon yahay Giovanni La Calcio isna waa ku jira Real Betis ka ciyaara waa roon yahay Leonardo Baradas baa ku jira rag u ciyaari doona Argentino bish u ciyaara Rodrigo Di Paul oo isaguna Udinese kamida Palacios oo River Plate Rodriguez waa ninka la yiraahdo Gudio Rodriguez oo kala Americana waa ku jira liiskanu weerarka waxa la soo xulay Leo Messi oo Barcelona Aguero Manchester City Paulo Dybala Juventus Lautaro Martinez oo Inter Matias Suarez oo River Plate waa laga soo tagay Higuain oo ciyaaruhu ka fariistay iyo waliba ninka la yiraahdo Master Mauro Icardi waa kaaya Argentina liiska ciyaarto ugu qayb gali doono wixii ciyaartoy ay Brazil haysatay sanadkan aan arkay maalin la xulay iyo ciyaaryahana fara badan oo laga tagay Lucas Moura iyo waxa laga tagay Fabinho iyo rag badan oo balaaya laga tagay arkuwaas dad badnaa laakiin Argentina ku baa dad yar haysto oo laga yaabayahay waan arki doonaa Messi wuxuu la yimaado waa ka rag ugu qayb gali doona Copa America wararka kale ugu weyn maanta ciyaaraha iyana waxa kamid tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Unai Emery ayaa ka hadlay wararka sheegaya in uu Mbappe ku biiri doono kooxda kubadda cagta Real Madrid Mbappe ayaa todobaadkan qarxiyay qarax weyn oo inuu biishi ka tagayo kuna biiri doono kooxo cusub taas waxay keentay biishi ay walwasho tiraado ninka nagama tagayo oo ay iska dawarwareeraan laakiin Unai Emery wuxuu cadeeyay Mbappe inuu mar walba rabay inuu ku biiro kooxda Real Madrid wuxuu waqtigii aan tababaraha u ahaa isagoo indhaha ka xiran buru inuu Madrid aado yaani Madridow baa laga gooyay waqtigii aan biishi tababaraha u aawir Unai Emery wuxuu yiri waqtiga ka wuxuu ninkan aad u rabay inuu ku biiro kooxda Real Madrid sidoo kale Barcelona way doonaysaa uu doonayay laakiin Madrid baa u darneed yaani aad u rabay inuu ku biiro waxaan isku dayin buru waqtiga ka inaan ku khasabneen kooxda ku celino waan la hadlay asagu iyo aabi waan la hadlay waxaan ku qancin inuu BC joogo laakiin asagu wuxuu doonayay in Real Madrid ku biro xitaa Barcelona xataa option kale uu rabay inuu ku biro laakiin asagu wuxuu isagoo indhuhu ka xiran ba la'aan uu doonay inuu ku biro kooxda Real Madrid buu yiri balse waxaan isku dayno markii dambe inaan lacag ku qancino miiska lacag u saarno marka wuxuu cadeeyay Unai Emery waqtigiisii tababar u ahaa xataa ninkan PSG Unai Emery wuxuu cadeeyay bariga xataa Mbappe sidaan hadda uu yahay in la celceli waayay oo Madrid uu rabay Real Madrid uu aad u xiiseeyay marka ninkan Mbappe waxa la qiyaasaya haduu sanadkan u sii ciyaaro PSG in sanad dambe uu Madrid iman karayo Unai wuxuu leeyahay waan baceli kari weyn ninka kaaye Madridow baa laga gooyay uu leeyahay marka arrimaha Bale baa Madrid inuu meel xun ka taagan goortuu Bale ka tagay Real Madrid ilaa hadda la isku waafaqino laakiin uu baxay u badan tahay hadda warar waxay sheegayaan in uu iska sugi doono Bale ilaa laga gaarayo ciyaaraha saaxiibtinimada ay kooxaha kubadda cagta caalamka ciyaarayaan inta horyaalku la bilaabay waxa jira kulamo isdiyaarina ilaa kulamada isdiyaarinta xilli ciyaareedkan uu gaari doono leeyahay ninka la yiraahdo Gareth Bale marka kadibna uu meel mari doono yaani kooxda ka bixi doono oo Griezmann dansiga ugu dambeeyay buu shalay ku ciyaaray ciyaartii ay ciyaartay Atletico Madrid oo ay la ciyaareen kooxda Better Jerusalem ciyaar saaxiibtinimo khamiis talaadii ciyaare markaas uu dhaliyo gool dansigiisana ku turtay waxaan uu goolkaas ahaa kii ugu dambeeyay oo uu u dhaliyo kooxda Los Blancos waxaan uu ahaa darba jazaa marka Griezmann goolka ugu dambeeyay uu dhaliyo ciyaar saaxiibtinimo kooxdiisa waxay u badan tahay inuu kooxda ka tagi doono Costaban halka ku dhaawacmay waxa la warinaya inuu ku biiri doono kooxda Barcelona sida ugu cadcad laakiin waxa jiri kara tartamo kale oo meel xun ka soo bixi kara tababariyaha Argentina la qaaday koobka adduunka Cesar Lucio Moneto wuxuu leeyahay hadii Messi ku guuleysan sanad ciyaareedkan Champions League waa inuu anaga noo qaada Copa America yaani wuxuu leeyahay hadii aad ku soo guuldareysanaad qaadi weyso Champions League war anagu noogu cimaamad wadankaagi baan nahay Copa America noo qaad madaxa ku dagsuulay Copa America noo qaado niyow waxa la bad nagu dashi Messi tababariyi hore Argentina wuxuu ka dalbanayaa Messi in uu sanadkan hadii uu Champions League ku soo guuldareystay uu Copa America wadankiisa gacanta u galiyo maxaa yeelay wadankiisa abaalmarin weyn gacanta kama saarin Messi wallahi laakiin habeen dhumo uu qaba habeen iska dhuma Ilaahay amarkiye habeenku dhumo waxa la rabo marka niman hoosh shacaba Barcelona waxa sanad kasta loo garaacay ma taqaan habeenku Messi dhumo oo yaani Messi ka jiifto oo kacsanan cid shaqada si cabaysa ma jirto kuwaas Argentina waa ka dareeyino Barcelona diiba hadii Messi markuu jiifo wax qabsan kari weeday Argentina kaasna oo wada galab ka ahna waxba qabsan karayaan war xaalkoodii la iska
Newcastle waxay doonaysaa ay tartanka kula biirtay kooxda Barcelona oo ay doonayaan in kula wareegaan ciyaartoyga Juan Mata oo ka tagaya kooxda Manchester United heshiiskiisa Manchester ayuu dhacaya 31 jirkan xilli ciyaareedkan waxaa ninkan aad u doonaysa kooxda Barcelona oo si bilaash ku qaadan doonta Rafa Benitez ayaa doonaya hadduu sii joogo kooxda Newcastle inuu Barcelona kula tartamo ninka la yiraahdo Juan Mata Liverpoolna waxay isku dayi doontaa 12 ciyaaryahan midkood inay soo qaadato mid kamid ah oo ay sanadka dambe weerarka ku isaga xoojiyaan Liverpool ayaa doonaysa weerarkeeda inay xagaga dambe buuxiso ay aad u xoojiso iyadoo hadda saddex nin qatar badan haystaan ayaa waxa laga yaabaa in Dani Sturridge kooxda ka tago sidaas daraadeed macalinka Liverpool wuxuu isku dayi doonaa hal nin ama laba nin inuu weerarkiisa ku xajiyo xagaga dambe Liverpool waa caqlaysay Liverpool sheedo hore ma ahan Liverpool oo dhoohan ah oo waxba aan wax iibsanaynin oo iska galab ayaa jiri jirtay oo 50 milyan ku raadinaysa 5 ay jiri jirtay laakiin Liverpool shan waa caqlaysay halna xataa 60 ay ka bixinayaan Liverpool bari caqli la'aan haysay waxna gadan jirin hadda waxay dareemeen lacag bixiya koob u tartama hadda Liverpool dhowr ciyaaryahan oo 12 bay ka dooran doonaan hal ciyaaryahan oo weerarka u xoojiyay sanadka dambe maadaama mid kamid ah u bixi karo weerarkooda waana loo badanaya storage hadda ragga Liverpool weerarka ay ku soo xoojin doonaan waxa kamid noqon doona ciyaartooyga Badran Traore oo Chelsea u ciyaari jiray hadda Lyon kamid ah Maxwell Cornet oo Lyon u ciyaaro nin aad u qatar badan laba goolna ka xareeyay Man City ciyaarihii Champions League hadda Samuel Jugwesa oo Villarreal kamid oo Barcelona maalin gool khatar badan ka dhaliyay Ryan Fraser oo Bournemouth ka tirsan way raadinayaan sidoo kale waxay isku xoojin karayaan ciyaartooyga Hakim Ziyech oo Ajax ka tirsan isku xoojiyaan bay doonayaan sidoo kale Timo Werner waana Ziyech loo arkaa inuu yahay Robinka cusub ee kubadda cagta u soo baxayo Ziyech yana ku qaab ciyaareed ah hadiiba uu la ciyaarayo rag hadii la ciyaarsiyo Mane iyo Salah hadii la ciyaarsiino aad fit ugu noqon karaya qatar ugu noqon kara Werner ayaa kamid oo Leicester u ciyaara rag ay Liverpool doonaysan isku soo xoojis xagaga dambe Joe Felix oo Benfica kamid baa liiskan ku jira Ronaldo cusub ee Portugal ah Nicolas Pepe oo u ciyaar Lille 22 gool dhaliyo ah 13 goolna caawiyo xilli ciyaareedkan oo qatar badanba Julian Brandt oo u ciyaar Liverpool sabaa ku jira liiskan min Nares min Philippe Anderson oo West Ham ah ilaa Maxi Gomez oo Celta Vigo ah warar kalena waxay leeyihiin Manchester United waxay isku dayi doontaa in la soo wareegto weeraryahan u ciyaara kooxda Fluminense oo weerar qatar badana kaas oo dhawaan ka soo noqday dhaawaco ninka kan oo la yiraahdo Pedro ayaa waxa sanadkii hore ku dhawaaday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Real Madrid laakiin dhaawac baa galay hadda 20 jirkan uu mar kale Manchester ayaa doonayso waxaanay soo warinayaan Globo Sport in Manchester la xiriirtay kooxda kubadda cagta ee Fluminense ay ka doonayaan weeraryahanka Brazilianka ee Pedro Ingiriiskan wuxuu dib ugu soo noqday tababarka xulkan kadib markay maadaama maalmaha soo socday la ciyaari doonaan ciyaaraha semifinalka koobka UEFA Nations League xulka Holland ciyaartooyga England baa qaarkood yimaadayo hadda tababar ku qaadanaya Van Persie wuxuu cadeynayaa in Solskjaer uu qalbo inuu kooxda Manchester City joogo walina u baahan yahay waqti uu kooxdan ku dayactiro oo uu ku dhiso wuxuu leeyahay uu qalmo in waqti la siiyo Solskjaer David De Gea ilaa hadda waa uu diiday inuu Manchester la joogo waxay Manchester ku khasban tahay marka inay iska iibiso ciyaartooyga kan ee David De Gea PSG bana ku doonaysa ciyaartooy kan 60 milyan mar kale ay dalab u soo bandhigeen kooxda Manchester United David De Gea heshiiska ugu cusboonaysiinayaan waxaanay wararka ugu dambeeyay leeyihiin David De Gea uu diiday heshiiska cusba ay u soo bandhigtay kooxda Manchester United heshiiskiisa hadda waxa uu harsan hal sano waxaan ninkan uu doonaysa kooxda PSG Manchester ayaa laga kari leeyahay wardhiiba lacagta ninkan uu doonayo oo ah 357 haddii ay diidaan ninkan uu bixi doono u badan tahay heshiiska hadda uu diiday shalay loo soo bandhigay waxaana PSG ay diyaar la tahay 350 Manchester dhiiblada soo maahan 400 kun bay tobaadkii ogoliyeen PSG 60 milyan way ku gadanayaan marka Manchester mar kale ay ku daashay baa leeyahay heshiisna ka siixato ninka De Gea shalay uu diiday mar kale inuu Manchester u siixiyo heshiis cusub maxay leeyahay Manchester waxa laga kari lahayd keen lacag 350 todobaadkii Ronaldo iyo Mourinho inay kulmi karayaan waa laga yaabayo walow Mourinho Juventus inay isku ficilin haddana Ronaldo baa ku qasbaya leeyahay in Mourinho yimaado kooxda Juventus haddana waxaad ogtahay labadan nin inay soo wada qaadeen koob waqtigii Madrid ay wada joogeen La Liga ay soo qaadeen 2011 Del Rey oo ay qaadeen 2010 iyo Super Cup Spain oo ay qaadeen 2012 Arsenal maadaama uu ka duqoobayo goolhayooda Patrick Schick una ciyaariyo kulkiisa ugu dambeeyay kan Arsenal la ciyaari doonto Chelsea ee baa ka dhacaya finalka Europa League Arsenal waxay raadinaysaa goolhayo cusub waxaanay raadinayaan goolhayaha Neto oo ciyaara kooxda kubadda cagta Valencia oo xilli ciyaareedkan Arsenal kaga hor yimaaday Europa League walow xataa usbiyo dib ugu soo noqonayo amahdii ugu maqnaa Napoli Manchester ayaa la sheegay in wali wada hadal kula jirto Dybala waxaana Manchester la ogaaday in muddo bil iyo ka badan ay wada hadal kula jirto Dybala waxa laga yaabaa Manchester inay gacanta ku dhigto Paulo Dybala warar soo baxaya sheegaya Manchester goor horeba inay heshiis kula sii jireen ama ay aad u raadinayeen Dybala wada hadalba uu socday wiilka laga yaabay Arnold ayaa taariikh kala sameyn kara isagoo xilli ciyaareedkan caawin looga yaabay ayaa haddana rekoorka u socda finalka Champions League hadduu ciyaaro finalka Champions League hadda uu ku soo bilowday saf koowaad wuxuu laatan jirkan u noqonayaa ciyaartoygii ugu horeeyay abid buu noqon doonaa isagoo aan gaarin yacni 12 sano laba final isku xiga ciyaaray Champions League oo xiriira waliba lagu soo bilaabay safka koowaad ee kooxda Alexander Arnold ayaa noqon doona daayirkii ugu yaraa abid ee ku soo bilowday laba final isku xiga Champions League tan iyo ciyaartoygii AC Milan ee Bonucci oo isagoo daayir oo aan 12 sano jir gaarin ciyaaray finalka intaan October la gaarin ayuu ninkan wuxuu
يعني نينكان ما نقون دونه تاني أكتوبر 2000 يعني ما نقون دون نينكانو إلا أكتوبر laga gaaray kula tajir ma noqon doono marka wuxuu noqon doonaa ninkanu ciyaaryahan aan wali gaarin da'da 22aad oo laba sano isku xiga ciyaaray finalka Champions League hadana ku soo bilowday safka koowaad waxa ninka ugu dambeeyay ahaa Milan ninka uu ciyaari jiray Cristian Panucci 95 iyo 94 goolintii Yurubna waa kay la isku hayayo wali hal kulan ba harsan Mbappe ayaana noqon kara ninka ku dhawaan kara Messi walow Messi 4 gool uu ka saray Mbappe hal kulan baan Mbappe u harsano hadda waa kan Yurub oo dhan rag ugu goolasho badan sanadka kan Messi 36 gool kan Mbappe 32 gool Mbappe weeyaan Quagliarella 26 gool Digne nin yiraahdo 30 gool Mohamed Salah 22 gool Mane 22 gool Aubameyang 22 gool Roberto Lewandowski 22 gool Zobata 22 gool Biontek 22 gool Nicolas Pepe 22 gool Ronaldo 21 gool hal nin baa ku dhawaa kara Messi waan Mbappe 4 gool buu u baahan yahay kulka ugu dambeeya